السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي طاوديال ومر كله iyo barnaamij aan kaga hadli doono khudbadii dheerayd ee uu jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya taas oo uu ka cadeeyay xogo iyo siro qarsoona isagoo sheegay inuu maxbuus u ahaa TPLF haddaba tan iyo markii uu qabtay xilka Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay inuu kala kulmay tacadiyo TPLF amase Tigreega haddaba qodobada ugu muhiimsan ee ku jiray khudbadiisa waxa kamid ahaa haba yaraatee inuusan wax awooda ku lahayn muddadii uu xilka hayay dowladda Itoobiya iska dhaaf in laga amar qaatee waxa uu sheegay marmarka qaar ay dhici jirtay in xafiiska shaqada laga xidho kadibna loo sheego oo lagu wargeliyo in furaha xafiiska laga maqan yahay lana oran jiray suuq inta uu imanayo qofkii furaha hayay sidoo kale waxa uu sheegay in maxaabiista uu sii daayo xabsiga inta laga saaro haddana dib loogu celin jiray waxa uu sheegay sidoo kale in sirdoonka aanay ahaan qaar ka amar qaata isaga mar uu damcay inuu yimaado dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku wargeliyeen inay joogto al-shabaab oo uusan tagi karin markaas wuxuu yiri waxaan ku yiri haddii aad ogtihiin waxa uu soo qaban weydeen argagixisada wadankeena joogta balse waxay ahayd inuusan wax saameyn ku lahaan arrimaha dalka TPLF oo awood aad u sareysa ku lahaa dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay muddo 29 sano ka shaqeynayeen burburka dowladda Soomaaliya iyo waliba Suudaan waxyaabaha ugu qosolka badan oo ra'iisul wasaaruhu sheegay waxa kamid ah in haddii uu suuliga galo lagu amri jiray uusan soo xidhin albaabka sidoo kale in telefoonkiisa gacanta laga qaadi jiray marka uu soo galo xafiiska inuusan xataa awood u lahayn inuu fiiriyo CC kamarada ku taala xafiiska marmarka qaar waxa lagu amri jiray ayuu yiri inaan gurigeyga ku laabto marka aan guriga ku laabtana ay soo wici jiray iguna amri jiray inaan xafiiska imaado si xushmad la'aan wuxuu sheegay inuusan wax qadarin iyo karaamo midna ku lahayn hannaanka siyaasadda ee dalka Itoobiya haddaba Abiy ayaa hadda waxa uu tirsanayaa riyad kadib markii uu xeedada u siibay awoodii Tigreegu ay ku lahaayeen dalka Itoobiya kaasoo xilka ka xayuubiyay saraakiishii ciidamada ugu sareysay kuwaasoo ciidamada ku amriyay inay ra'iisul wasaaraha ula dhaqmaan haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay dal ula dhaqmaya ra'iisul wasaarahooda sidan bal suuree siyaasiga Soomaaliyeed ee haatan ay gacanta iyagu ku hayaan kaasoo fuliya amarada iyo rabitaanka iyo danaha siyaasadeed ay ka leeyihiin Soomaaliya sidana wada ognahay dowladda Itoobiya ma lahan bad balse waxa ay tababaran ciidamo badeed taasoo haatan Abiy Ahmed ka quudareynayo madaxweynaha xilkiisa uu sii gabagaboobayo ee farmaajo inuu ku wareejiyo xeebaha dalka Soomaaliya oo Itoobiya aad u danaynayso tan ayaa ah danaha qura ee uu Abiy ka leeyahay Soomaaliya kari waa sawirka xaqiiqada ah ee ka jira dalka Itoobiya iyo awoodda ay lahaayeen TPLF inkastoo dadka falanqeeya siyaasadda Itoobiya ay sheegayaan in Abiy xaaladiisu ay ku sugan tahay kud ka guur oo qanjo ugu maadaama oo hadda gacansaar adeeg la leeyahay xamaarada oo ah qoomiyad aaminsan inay mulki u leeyihiin dalka Itoobiya cid uga sareysana aanay ogolay balse waan eegi doonaa halka ay iskala dhacaan ra'iisul wasaaruhu hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabay waxaan maxbuus u ahaa TPLF barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.